Kulliyadda tababarka ciidamada dalka Turkiga ee magaalada Isbaarta waxaa lagu qabtay munaasabad tababar loogu soo xidhayay urur ka mid ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidamada Danab ayaa soo bandhigay dhoolatus la xiriira tababarkii kala duwanaa ee ay qaateen kaasi oo u socday muddo 4 bilood ah, waxayna xuseen inay diyaar u yihiin difaaca dalka, diinta iyo weliba dadka. Generaal Maxamed Xuseen Garabay oo qaybsamaha arrimaha ciidamada ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga ayaa u mahadceliyay macallimiinta dadaalka ku bixiyay tababarka ciidamada, kuwaasi oo u dhabar adeegay waqti ay cimiladu aad u qaboobayd, iyo dowladda Turkiga oo door weyn ka qaadanaysa dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. waxaa sharaf weyn noo ah maanta oo bishu ay tahay 13 bisha 2020 mar labaad in la ku casuumo xafladda qalin jebinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkan muddo 4 bilood ah ku qaatay tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kiisa ugu wanaagsan ee ah firqada Danab. runtii dowladda Turkiga ee walaalaha nahay ee ummadda Soomaaliyeed had iyo jeer hil iyo la garab taagan, isla markaasna dhismaha iyo kobaca ciidankaba qayb libaax la ka qaadata. waxaan halkan ugu soo gudbinayaa anigoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliyeed, magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, magaca wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxda qarankaba in ay sharaf weyn noo tahay in ay mar walbaba hil iyo hooba ay la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed iyo kobaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah halbowlaha amni ee dalkaynu maanta u baahan yahay. wa alxamdulilaahi rabbil caalamiin. waxaan leenahay dadka iyo shacabka iyo dowladda Turkiga iyo macallimiinta tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u geysatay ee mar walba la taagan hil iyo hoo. waxaan Ilaahay hortiisa ugu baryaynaa in Ilaahay ka abaalmariyo ummadda Soomaaliyeedna. waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in ay noqdaan kuwo ka faa'iideysta dhismaha iyo kobaca ciidankooda iyo dowladnimadooda. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii tababaro badan ayay qaataan, laakiin tababarkan waa mid khaas ah oo gaar ahaan la baro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed noocyada cadawga ee adduunyada waxba iska bedelay. tababar ku saabsan cilmiga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah midkan hadda casriga adduunyadu qaadatay ayaa halkan lagu baray. dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhaxeeya xiriir wanaagsan oo soo jireen ah, waxayna dowladda Turkigu Soomaaliya ka taageertaa dhinacyo badan. Axmed Abdiqaadir Ismaaciil, magaalada Ankara.